aramidan ihayse uurkayga gubaysa adooni ogaano ilmadaniga tirin aramidan ihayse uurkayga gubaysa adooni ogaano ilmadaniga tirin urugada dhibtaan qabo kama oon baxaye aroos may la gelaysaa urugada dhibtaan qabo kama oon baxaye aroos may la gelaysaa maxaa kala go'an leedahay kala go'an warniyo maxamed khaarki kala u diro bal anuu hawli iyo waxaan ku jira walaal teedii baan taag waaye bal dhamay aduu cidun u dirday kaasna dum mashquulsan anuu mashquulsanayo kiisa waxba igu furanay bal waaye walaal waaye inaga maaray walaal dhinac kiis dhinac wax kale mashquul alaykum salaam walaal waran ما شاء الله ولا والله سما فيني الحمد لله والله أنا ما شاء الله نمحن كجرا أنا واسكف يعني تهوله هنا وكوا صعدا بل أظن محا أرني أدون حساب لإيجار حقي إن هوله يصلي يكيسكي محا وحورك هيسا تمد كلا أنا تليه والله حظيا تليه هنا ونسكو حنا قرنا نسكو بغنا دنين كيسكي قرتين ودلكينا سمعي قرتي وقعنتك هيستولي أنا ودي وح محكمة أنا وكين وأنا ودي وحي اللي يقول محكمة وحكومات أنا كفرين أظن محا يقدم بيوت حساب ورا دور المحات تليون سكو بغنا يا والله تنيو تليون وذا هذا لأنه كوده نيجي ما طلع حكومة يا ما أنت محكمة دي وينتجنا صح واحد نيجي والله حكومة يا ما أنت محكمة دي لقيني يا ساكن محكمة دولة نجرب هذا مركز ساكن محكمة دولة نجرب هذا يعني هردة إلى تكتيب مرة رأس لا تكتانه محكمة دي وينتجنا ولا علمك وين أمر يو اللي بيصير يعني يو بحنا أنا مروي أنا ولي بريجي فرده شعيلك هو بريجي هره إن أنت واحد ما لون جرنت عياه ورقة قاعد تيمك هو واحد ما يسمع midda kale bariga hore hablo waxay ahaayeen gabadhidan sadhaa ma aragtay horoma isticmaal imika ku arkay silafka marka la daraba shaqam كونا may horta waa nin warama ka wada imika balan ee way ku guulaysan sideen rabbi baan loo hiri kale waxa weeye balan bi bay noo dhiman السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شعيلك محد كامل سنة وقت بروني يا صفري صفر شايف شعيل ما أنت حاول. واقع وهلاك waa naar أنا ملا لقيتها. لقيتها هو مركا ودت كيف فرعون شيدي waqti ismaaniintii jirtay yow ويريد بريقة wallahi كودي waan yaabee arbaan gurtay markaas shirada dad ku tira waqti ismaaniintii jirtay waan carin leeyahay ismaaniintu waa shaqo xaqeeyo la أصحاب تادي. waa aqliga shirtay marka ismaaniintu jiray برشلونة يصير kadi هاي بالعوض. aniga magacayga sarkaalada magacaygu waxa weeye meel lagu sheegin cunaaye أدينا ولا مهدي ولا لا أدينا wala laba wajii أدينا la abdullah waa kana la قاس تريبا لا يكون لا أدينا ولا أدينا أنا قاعد أتكلم قرني ولا لا محل horta arrimaheena oo dhan kor bay ka socotaa sarkaalada oo soo garaacayabe ku jiro waa xubin ka mid ah ما الشقة ما كله كتير لا ما قبته taliyay ma waa xubin ka mid ah madaxa sirdoonka ciidamada ka mid tahay hawlahana ciidamada daacadda weeye hawlaheena si fiican bay korka kula waa gabadhiga daacadnimo kala dheere Xadhig. aad wax lagu sheeg ayaad mar hore digsi 9 mishin oo kale aniga ninkan mar dhawid baan waxyara waxay adu jeelka ku ciidamada daacadaha adu jeelka ku fiican aniga iska hadii la soo yar xidhan iyo soo aqlaysan lahaa wareejintii aan loo garaysan lahaa عشان بقى راسين لو كسب حني مال مدويتي ما هي ما هي وعادي. لانك حيب انا صدق ما كوتشر يا إمك أنا كحيل ruuxaati waxa inta ka baxdo qalbiga nadiifka yara dhigtaa adigu hoo ku karanaya duuyagu أديك بريف بريف saa loo sheegay waxaad ka helisay hada way waxay la abdillah أنا ayaa أرتاح يا أرك بنيو jacaylkiisa isku tiirtay عاد شايل مقرن ماذا حابب دي بيسي
ninkan gabigiisa dig baa ku jirta jacayl ma yaqaano waa kaad ku dhalatay inteena bada waxaan ka taqaanaa in baashii mahdiya ugu fiican oo iyadu ilaa uga timi Switzerland iyo mahdiya ablukaadi laakiin inay isku geysano waxa weeyaan jacaylkayga inta la aftuubtay anna meel lee ilaahay ana kaasi daran baadiga jacaylkaygii inta ii timid baan dee mad garin الله ورورك وحده ولي تنكن واحد فرق وحو باهين anna eedaysana نكن واحد السنه ana jacayl baanay امر وحصر ما يمكن هيدون سمينيا ما يمكن هيدون سمينيا جعيل هودون idinka dhaxaldo صح horta walaal aan dhibna jacayl baanay صح walaal qofaan jeclaa qofkii aan jeclaa ee halkan yimid ayaan iska dawreey ku dhacay walaal anigu eedaysana jacayl baan ahay kawdhay qofkii aan jeclaaba qof jeclaaday ma garanayna adduunka dhaafi alla eeda jacayl baan qofka jeclaa qof jeclaaday oo waan ku wareejinay marka wareeg baa laga raacay ولا ميريس wareeg baa laga raacay هنا كنا وما يديس دلا ana ila meesha arrimeeno de wad garanaysaa waa isku unug qurayno isku inta si aanu sheegay sarkaalade raal lahado هذا وايد ayna tima ku dhacay albaad mid qaadanaysa mahdiya aniga arrimihii jacaylkii waxaad soo hadal qaadina hadal ma karayo adigu wad ka boodibay xusuusay gashay xusuuso xasuusan gaara gashay allah anaga wana xasuustay waa walaashin qalbigeeda ilaaliyo ilaahayna ka boqo qalbiga hala wada ilaanka ay leedin ka aan qaadi isku ogaana anu sarkaaladaas raacaya suuqa ilaahay baa waariya anu anaga bahdayna xussansa sarkaalada waa ninkan haduu sargaalada raaciyo haduu suuqan kala ba ninkan digtiisu taagid ateega hawshino waxay tahay iska fadhi waan soo imanaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يالي مروين وإنا نلالنا كلا دنبينتا يندامك محاكمة عيد كستو دعوة قبطانا وإنا فرت تاكتا ساساني نوو فرنتي محاكمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يال iyo marweyn salaan kadib waxaan bilaabi doonaa in kiiskii aan gacanta ku haynay ee cadaan ee dhacay 8 bishii 10aad 2020 habeen jimcaha uu soo galayo abaar 8 iyo barkii fiidnimo waxa xaafadda xiraaw dil ku geystay qof ku hubaysan mindi dilkaas oo loo geystay marxuumada laki ina ardo kooshin baaritaan fara badan ayay sameeyeen ciidamada sirdoonka iyo dhammaan laamaha amniga waxaana kiiska loo soo xiray cadnaan ina waris oo ay isku meel ku noolaayeen muddo bil ah kaas oo ah qofkii ugu dambeeyay ee telefoonkeeda koowaad xiriiryan laki mudane garsoore markii kiiskan la xil saaray anigoo ilaalinaya nidaamka sharciga xuquuqda muwaadin iyo dastuurka dalka waxaan go'aansaday inaan sii daayo muddo kadib isaga igu soo laabtay kadibna kiiskan afkiisa ka qartay waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa in kiiskan si degdeg ah ula wareegto waan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha kiiskan garsooraha iyo dhammaan bahda cadaaladda anigu kiiskaas waxaan ka qabaa dood waxaan ahay anigu haddaan isu sheego cadnaan saaxiibaan ahayn muddo dheer waxaan u sheegayaa waaxda cadaaladda waxaan u sheegayaa ninkaas in aanu wax dembigaas aanu wax luga ku lahayn ninkaasi muddo ilaa iyo laga gaadhayo 10 sannadood anagu waxaan ahayn dad saaxiiba aqoon badan aanu lahaa waxaan ogaa muddo imika laga joogo ilaa iyo 3 bilood ama 4 bilood inay noqonayso oo arinta kiiskaasi uu socday kiiskaas wuxuu ahaa qofkii isagoo adduunka qofkii ugu jeclaabo mana ay suurto gelinin qof uu jecel yahay inuu qof kale uu dil u geysto kaas waxaan u sheegayaa ninkaasi in aanay jirin haba yaraatee wax sabab ah oo uu ku dili karo oo uu ku geysan karo dilkaasi
inta loo haysto dilkeeda haddii la doonayo in si dhaba loo sheego cidda dishay waa ciddii dibadda uga soo saartay gurigeedii ay ku noolayd iyo noloshii quruxda badnayd ee ku jirtay cidda dibadda uga soo saartay ciddaas ayaa mas-uulka haddii uu isagu mudane garsoore uu noqdo dembiile waxaad ogaataa inay dembiilayaal noqon doonaan cid kasta oo la kulahayd inay dib loo soo saaro oo laga soo saaro goobta ay ku noolay isagu wuxuu ahaa qofkii gacanta intaasoo dhan ay ku hayeen wada joognay hadday noqoto nolol waqti adag aan soo wada qaadanay iyadoo ay ka soo baxday guri barwaaqa sooran iyo nimca inta ay taallay marka waxa weeye inuu sheegayaa dhammaan waxaan sheegayaa qofka way dhici kartaa inuu dembiyadaas sababo kalifa ay jiraan inuu qirto aniga way iga dhantahay mudane garsoore haddii wax la xukumayo ama dil uu yahayna wuxuu u baahan yahay in laga fiirsado ma saasaan aanu idin sheegayaa maxkamadan aanu sheegayaa mudane garsoore wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qof dambiilaayo dembigiisa qirtay in mudane garsoore loo doodo ama la isku dayo in la badbaadiyo iyadaaba dembi ah markaa anaku cadaymihii iyo inuu ninkan kiiska afkiisa ka qirtay waanu keenay maxkamaddana waanu hor keennay wax kastoo cadaynahayna waanu hor keennay maxkamadda kolley go-aanku wuxuu ka baxaa garsoore waa gacantaada marka kolley adigu maayo kiiskan gacantaada ku jira go-aankuna waa xaga eedaysanu haystaago sheeg sababta dilkan u geysatay iyo wax kastoo kuu kalifay garsoore kiiskan anigu aan galay qolada CID-dan hortooda ka cadiyay inaan gabadha gacanteeda ku dilay wax walbana CID-dan ka horsheegay wax hadaloo halkan iga furan ma jiro gabadhaan aniga gacanteeda ku dilay mana rabin su-aalada dimiintii waxaan ka codsanayaa maxkamadda sharafta leh in loo xukumo ninkan maadaama uu hortayda ka qirtay inuu dilay inanka adeerka u ahay xaqeedii loo soo dhiciyaa weliba dil toogashaana lagu xukumo waxaan horta mar labaad aan u sara kacay mudane garsoore waxa weeye arrinka kiiskan adnaan totally arrinkaas uu ka aamusay sababtaasina wax kale maaha waxa weeye waxa jiri karta waxyaabo qasbi kara way jiri karaan qofka xaalado kale marka mudane garsoore si kastoo uu qiraal u yahay anigu ma aaminsanayn inuu kiiskaas maxkamadan iyo waxa garsoorka iyo ninkan dacwadda dabada ka wada waxa looga baahan yahay isagay shaqadiisii tahay inuu keeno cadeymo buuxda maaha afkiisu ka qirtay wax ka duwan kaliya dadku dad wax ka siyaabo badan qofku wuxuu qiran karaa balse laakiin waxa looga baahan yahay iyagu maxay cadeynayaan ay ka howlgaleen muddadan kiiska ay gacanta ku hayeen jooji maadaama oo kiiska ninkii lahaa uu qirtay adigu wax cadeynaad u hayn maxaa murankan iyo doodan keenay mudane garsoore waxaan hayaa anigu cadeymo fara badan cadeymahaas waxa ay qayb ciidanka ka mid ah waliba qayb ciidanka sirdoonka ka mid ah oo ay wada shaqeynayeen ninkan imika waraaqaha sitay doodayay marka ninkaasi wuxuu hayaa waa ninka Naasir Leela isagoo mobilkii gacanta ku haya oo ay waqtigaas soo qaaday oo qofkii ugu horeeyay meesha tagay ahaa cadeyntaasna haya wixii uu isna hayo oo ka hadli doono waxaan codsanayaa in halka la soo istaajiyo mobilkaasna wax badan in laga heli doono maadaama oo qofku wax badan fariimo badan si ku reebi karo mudane garsoore waan ka fadhiyaa anigu kiiskaas garsoore anigu waxaan hayaa cadeymihii oo dhameystiran waxayna ku jiraan mobilkan waxaan u sheegayaa cid kasta oo fariinteedan aragtay inuu jidkay galay qof aanan wajigiisa aqoonsan kadibna uu midi geliyay haddii aan sidaas idinku macasalaameeyo wax kastoo ay soo gaadhay waxa mas'uul ka ah familkayga iga soo saaray habeen madow noloshii farxadda iyo riyooyinka quruxda badan ee aan ku noolaa waxba ma arka dhibkii soo gaadhay xumaana uma qabo adeeraday waan jecelahay waanan jeclaan doonaa waxaanan rabaa inaan u sheego adeeraday in ay cadnaan ka galeen dembi sida aniga iga galeen dembiga oo kale sababta kaliya ay noo kala fogeeyeen ay ahayd inuu yahay danyar aniguna aan ka soo jeedo qoys ladan waxaan waayay waalidkaygii waxa kale oo waayay familkaygii iyo adeeraday waxaan waayay kale noloshii farxadda badnayd iyo qofkii aan adduunka ugu jeclaa si kasta ay ahaataba waxaan u sheegayaa adeeraday haddii aniga inuu jacayl ay qabaan waxaan u sheegayaa adeeraday in aanan adduunka ka tegin sababtoo ah waxaan ka tegay qof aan naftayda ka jecelahay kaasoo ah cadnaan farxaddii iyo kalgacaylkii iyo wax kastoon anigu idinka wadnaa walow aan waayay waxaad booskayga gelisaan cadnaan mar kasta inaad garab siisaan xumaantii iyo colaadii inaad wanaag ugu beddeshaan waxaa iiga dhigan tahay in aad ii buuxiseen booskii waalidnimo balse haddii aad halkii kasii wadaan dhibkii iyo xumaantii aad isaga u hayseen waxaad ogaataan inaanay jirin wax wanaag iyo cafis ah oo inaga dhexeeya
waxaanad iila mid tihiin dad loo abuuray aniga naceebkayga. mudane garsoore ma aha in cod yaroo lasoo duubiyo waxaas in wax in lagu mashquuliyo ama wax maxkamad lagu mashquuliyo maaha ninkan kiiska afkiisu ka qirtay mudane garsoore marka waa in kiiska si degdeg loogu qaado oo ninkan xukunkii uu lahaa maxkamadda laga hor cadeeyo garsoore waxaan ka codsanayaa maxkamadda sharafta leh maadaama aan halkan fadhiyay oo aan dhageysanayay dooda halkan ka socotay iyo kiiskan codka aan dhageystanay oo ahaa inantaydii laki ama inantan abtiga oo ahaa maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa ninkaa cadna inaan wax dambiye geysan ka codsanayaa haddii cadeen loo hayo haddii cadeen loo helba ninkaa cadna la dhahdo inuu cafisiga yahay maxkamadda waxaan ka codsanaya mudane garsoore maadaama oo dee wixii jirayba laynoo sheegay ama cadimo badan oo naga qarsoonaayeen waxaan ka codsanayaa garsooraha ama maxkamadda sharafta leh dhammaantiin in walaalkeen cadnaan laga qaldanaa sidaan arkayeyna dee inantan adeerka u ahay muujisay laga wada qaldanyay kiiskan uu u qirtay sidaa darteed markii nolosha soo yaryaatay isna uu isku dayey in kiiskan laguba qaado oo uu sidaa dunida kaga hali jiro markaa mudane garsoore waxaan kaa codsanayaa in la sii daayo cadaan yaaliya marweyne aad baad mahadsantihiin dacwadii noo socotay maadaama aan caddaynahayno ma jirto cafis mudane garsoore wax kale maana kale laakiin waxaan u kacnay caddayntii ugu dambeysay waxaan codsanaynaa cidda dibadda taagan naloo soo daayo waana mahadsantihiin